gudoomiyuhu sida loogu eedeeyay cadaalad darrada kaliya waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan iraahdo waxaa muhiim ah baarlamaanka Soomaaliyeed inaasna noqonin baarlamaan qof uu leeyahay baarlamaan shacabka Soomaaliyeed matala inuu ahaado gudoomiye Jawaari gudoomiye laba mar aan dooranay ayuu ahaa xildhibaanada kamid ah ayuu ahaa uma aan dooran in 275 kuwa iyaga ay leeyihiin asaga uu leeyahay ay noqdaan masayrkii baarlamaanka iyo shacabkii aan matalayni aan ku bedelano in qof aan iska daba taagnaano waxa aan maanta ugu keenay mooshinka waxa sabab u ah baarlamaanka wuu hagi waayay walaalkeen waa xildhibaan sharaf leh laakiin baarlamaanka wuu hagi waayay taas ayaan dooranay 108 xildhibaan inay isku qanciyaan in baarlamaanka muxuu ahaa waa ka badan tahay sida hadda xildhibaanada ii sheegan qaar badan geey runtii inay xildhibaano intaas leeg ay isku qanciyaan in muxuu ahaa gudoomiyaha uu hagi waayo baarlamaanka runtii waxa waaye waa wax muuqdo oo shacabka Soomaaliyeed u muuqdo warqadan waxay ku socotaa koow gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdi Weli Ibraahim Sheekh Muudey ujeedadu waxa weeye mooshin kalsooni kala noqosho gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magacyadooda iyo saxiixadooda halkan ku lifaaqan yihiin waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soo jeedin waa mooshin baa loola jeedaa kalsooni kala noqosho gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari